السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام يا إن شاء الله مقال كنا ما أنتم حكوا سابسين هاي موضوع أنا أركي إنه مهم يهاي بس لقيا بعدين أنا وأركت إنه مهم إهين لكن نفس ده أنا أركي إنه مهم يهاي إن شاء الله موضوع سبحوا يهاي إدبنت نفتا تايتل كيس وحنا قندونا إدبنت نفتا سيدا النفتا ذكو إدبن كرتا وموضوع مهم أنتوا أقول بدنا لفي نادرة يقف كشيء كينا يعاد أركته صوبته قف والباب وحول على دعاية سيدو نفس دي سيدا بقول لها وأذك تايقف نفس دي سيد إدبي إنه هذا dadka hor imaado u sii sheekeeyo sida uu edbiyay waxyaalo kale insha Allah halkan waxaan kugu siin doonaa lix step aan uga hadli doono sida loo edbiyo nafta waa xaqiiq lix tilaabood hadda sameeysid waxaad noqon doontaa qof ka adag nafsadaada noo bilaabo waxaan ku siin doonaa tilmaamo ku saabsan sida loo sameeyo edbin nafeed macnaha sidee ay nafsadaada ku edbin kartaa number 1 waxay noqonaysaa deji yoolal cad macnaha waxaan ka wadaa waxyaalo adiga yoolal cad ku ah qeex waxa aad rabto inaad gaadho mar alaala markii aad yool degsato waxa ku xig sidee ayaad hadana yoolkaasi ugu dhabayn kartaa mid labaad sameey jadwal joogto ah sameey jadwal maalmeed tusaale qofka bini aadanka ah macnaha waqti walba wuxuu u baahan yahay inuu sameysto jadwal nololeed tusaale sidee ku sameysan kartaa jadwal nololeed waxa ugu fudud waay aad sameyn karto maanta hadii lagu dhaho qof hebel ayaad wax u sameynaysaa waa sameyn kartaa laakiin nafsadaada wax ma u sameyn kartid Soomaalida waxay ku maamaadaa kaba tole kabtiisa ma tole kabadado ayuu tolaa dadka kabatolaha laga wada tusaale mar alaala marka aad sameysid jadwalkaaga nolosha waxa ku hagaagayo macnaha waxa ku hagaagi doono yoolkii aad nololkaagi yool kamid ayaa ku hagaagi doona hadda tusaale Soomaalidu inta ugu badan tusaale wax ku fahmaan tusaale hadda adin siiyo waxaan ka hadli doonaa jadwal maalmeedkayga marka aniga kayga ka hadlo subaxii waxaan soo kacaa 5 qof walba garanaysa 12 saac oo subaxnimo wadanka aan joogo waxa laga dugtaa salaada subax 12 saac iyo something inkastoo Soomaali laga dugto 12 saac waxaan soo kacaa 5 subaxnimo maalin walba waxaan socod aadaa 30 daqiiqo meelan iga fogeen masjidka marka ka soo baxo hore guriga kama imaado waxaan sameeyaa meel gurigayga ku xendaaban oo halka ka jirta inaan 30 daqiiqo ku soo socdo socodkaas wuxuu iga saacidayaa waa arki doontaa waxa jiro book aan aqriyo sawirkiisa halkaan idin soo saari doona Six habits alla buuga insha Allah halkaan idin soo saari doona buugaas waxaan sameeyaa inaan 10 page ka aqriyo 10 page inaan ka aqriyo 10 page kadib waa iska laaba tusaale inaa wax ku caajistid ma fiican markii aad taas ka soo tago waxaan sameeyaa inaan cabo biyaha watarka caadiga ah oo waxba lagu darin waxba ma lagu daro biyahaasaan caadiga caba ilaa iyo maalintii waxaan isku dayaa 3 litir cabo marka taa laga soo gudbo waxa la imaaday sida nolol maalmeedka sida uu ku soo socdo habeenkii waxaan sameeyaa inaan seexdo adiga alcalis ahaan 3 saac iyo 40 daqiiqo inaan sariirteeda saarnaado si aan 4 saac hurdadeeda u sii wado waa jadwalkayga nolol maalmeedkayga aan sameeyo waa midka okay adi sidaas oo kale tusaalaha ku siinay mid sidaas oo kale inaad sameysato notebook aad tagto ku qorato aadna hirgeliso waxaan ka wadaa jadwal maalmeed sameyso waa midkaas sameyso jadwal maalmeed oo ay ku jiraan hawlaha lagama maarmaanka waxaan ka wadaa sida hadda aan soo sheegay inaad biyo cabto hawl lagama maarmaana inaad socod aado inaad book akhrisato fikir aad wax aad sameysato hawl lagama maarmaana waxyaalaha hadda idin sheegay waxyaalaha iska caadiga waxyaalaha privacy ani aan sameeyo nolosheeda way jiraan laakiin idin lama hor imaan waxaad sameynaysaa waxyaalaha lagama maarmaanka ah si aad u gaarto yoolalkaaga waa mid labaad mid hadda idin sheegayo midkooda soo gudubnay waxay ahayd deji yoolal cad ahayd mid labaadna waxay ahayd hadda sameey jadwal joogto ah sameey jadwal maalmeed oo ay ku jiraan hawlaha lagama maarmaanka si aad u sii gaarto yoolalkaaga waa mid labaad insha Allah waxa ugu gali doonaa midda saddexaad inaad naftaada ka odkaado hadaad rabto waa inaad kala hormarsiisa hawlaha kala horeysiinta hawlahaaga adiga wala waxaan ka wadaa tusaale maanta 8 saac waxa tiri waxaan qaban doonaa 8 saac maanta markay tahay adiga hadaad gabar tahay waxa dhihi kartaa 8 saac maanta markay tahay waxaan bilaaban doonaa aan ka fardhaqdo 10 saac aan gurigeyga iska joogo wax cashaaba aan karin ee diyaarsanaad cashadeeda saasa dhahday markii aad saas dhahday 8 saac waxa lagu gaaray 9 saac hawl 9 saac qaban rabtiya kugu dultimaaday tii horena maadan qaban macnaha inaad nafsadaada ka adkaado hadii aad rabtid waa inaad adiga aad sameysaa kala horumarinta hawlaha midaas ayaan ka wadaa kala horeysiinta hawlaha kala saar hawlaha ugu muhiimsan oo u baahan in la qabto maalin kasta hawlaha muhiimka ah oo in la qabto maalin walba oo mudan kuwaaga waa inaad kala saartaa aad kala horeysiisaa sidaas ayaad uga adkaan kartaa nafsadaada waxaan ugu gali doonaa numberka 4 ka taqallus waxyaalaha adiga ku mashquuliya ka saar noloshaada waxyaalaha aad u aragtay inay ku carqaladeynayaan waxa jira waxyaalaha anaga aan u aragnay inay na carqaladeynayaan hadan aan nolosheena ka saari karin maxaa kamid ah xogaa hadaan kula kaftamo shukaansiga kale shukaansiga qaar waa ku qanacsan tahay inaad qof xiriir la sameyso la haasaawdo la sheekayso waad ku qanacsan tahay qofka qaar dadka qaar kuma qanacsanid in la hadasho hadan noloshaada kama saari kartid sida uga saari kartaa waa go'aan qaadasho kaliya
kaliya inaad qof aad dhibsanaysid noloshaada ka saarto dhibsasho ma ahan macna waxba aan kugu soo ziyaadinaynin intii aad la sheekaysanleed maanta waxa ku dhaantay inaad 10 page buugaad akhrisato laakiin ma sameeynis maxaa u sameyn laadahay go'aankii aad wili qaadanin ka saar noloshaada waxyaalaha carqalada kugu noqon karo waxaan ka wadaa tusaale ama baraha bulshada ama TV-ga ama qof aad u aragtay inuu waxba kugu soo ziyaadinaynin sidee noloshaada uga saarin kartaa waxaad uga saari kartaa inaad go'aan qaadato markii aad go'aan qaadataan waxaad edbisay nafsadaada mid shanaada waxay tahay isticmaal isla hadalka togan waxaan ka wadaa si gaar ah inaad isla hadasho adiga maanta inaad wiliga ma sameysay waqti gaar ah inaad noloshaada la qaadatay meel gooni aad tagtay soo noloshaada maad la hadashay si gooni ma la hadashay isbuuca maxaa soo qabatay isbuuca dhan iska daa shalay maxaa qabatay maanta maxaa qabatay qofka bini'aadamka waxa la rabaa wixii shalay uu qabtay inay maaj gareynayaan wuxuu maanta uu qabanayo tusaale markaan ku dhahayo daji nolol maalmeedkaaga jadwal maalmeed sameysay markaan ku dhahayo wixii aad shalay sameysay iyo wixii maanta aad sameysay waxa loo baahan yahay inay wax seem ahaadaan nafsadaada ku dhiirigeli hadal nafsiyeed togan iyo cadeemo macnaha muujinayo inaad diiradda saarto waxyaalaha noloshaada yoolkaaga ah waxaan ka wadaa inaad ka soo baxdo nololaha qaar qiyaaliga ah aad maalin walba qof aad isku cawaadaysaan waxba isku soo ziyaadinaynin inaad ka soo baxdo aad u imaato real life-kaaga adigoo macnaha noloshaada wiligaa horta si gooni inaad u baxdo noloshaada lama la hadlin waa sax laakiin bar noloshaada in sida noloshaada lala hadlo mar alaala markaad barato sida noloshaada loo hadlo waxaad baranaysaa sida nafsadaada aad u edbin lahayd waxaad ku dhiirigelisaa nafsadaada inay xoogga saarto yoolalkaaga in xoogga ay saarto waxyaalaha adiga muhiimka ku ah waxyaalaha adiga guulalkaaga ah tusaale sidee xoogga ku saari kartaa guulalkaaga waa mowduuc gooni ah laakiin waxaad xoogga ku saari kartaa haddaan kuu soo khulaasay ama kuu soo gaabiyo nafsadaada inaad edbiso haysataa edbinta nafsadaadan haddaan ka hadlaynaaba mid lixaad waxay tahay la soco horumarkaaga si joogto ah horumarkaaga sida oo la socon kartaa maanta meel iska fadhiisa horumar maba sameynaysidba waxa isleedahay maxaan ba la socdaaba ani horumar maba sameeyay horumarkan la soconayo muxuu yahay first nafsadaada aad edbinaysaa waxaad ka adkaanaysaa nafsadaada second waaba horumarka lagu sheegayo waa inaad nafsadaada edbiso then waxa ku xiga horumarka la soco markii lagu leeyahay edbinta nafsadaada soo edbisa ayaa la soconaysaa waa horumar oo la soco horumarkaaga si aad jidka ugu sii socoto maxaa way hadalkaas oo la soco horumarkaaga si aad jidka ugu sii socoto waxaan ka wadaa horumarkaaga oo la sii soco si aad jidka ugu socoto waxaan ka wadaa horumarkaaga mar walba aad la socoto waxa ku suurta galaysa inaad la socotid horumarkaaga wadadu haayo daamiinis qof walba horumarkiisii waa horumar gooni ah adiga horumarkaaga markaad nafsadaada edbinaysid waa wada gooni ku ah marka wadadaas si aad ula socoto inay saxan tahay inay qaldan tahay waa ina fast aad la socotaa horumarkaaga insha Allah waxaan kugu dari doonaa lixda meesha ay igu soo idlaadeen aan kula wadaagay maanta oo edbinta nafsadaada ah waxaan kugu dari doonaa hal dhiirigelin ah ama waano u qaado si aad doonto u qaado laakiin waxaan ku dhihi lahaa xasuusna is edbinta inay tahay xirfad lagu horumarin karo nafsadaada